maanta waxaan warbixin kooban idinka siin doonaa fannaankii la dhihi jiray Cawaale Aadan. Cawaale Aadan wuxuu doonayay inuu show ku qabsado magaalada Hargeysa, gaar ahaan garoonka Hargeysa ka soo degay isagoo shacabka Somaliland ama gaar ahaan Hargeysa aanay ku qancin hadaladiisa sida jabhad ma yihi, qaran ma aqoonsado, qaran jira ma dumiyo. iyadoo taasi jirto ayay shacabka Somaliland waxay ka soo qaadeen hadaladiisa sidii filimkii Mareeka Laara ee ahaa ku dooni mayno Cawaalow. Cawaale waxaa ku kacay fal kale oo wuxuushnimada tigdhada waxa laga soo daabacay shirkadaha ku yaala waddankaasi Djibouti, waxaana ay ku qornaayeen afka Faransiiska. shacabka Somaliland ayaa sameeyay falcelin la yaab leh ayagoon gebi ahaanba doonanin tigdhadaasi oo qiimihii lagu bilaabay ahaa $30. Cawaale markii uu arkay inaan cid u soo socon waxa uu bilaabay inuu xaraasho tigdhadii iyadoo qiimihii loo bedelay $20. haddaad maqli jirtay dahabshiil baa badgalay, haddaba Cawaale Aadan ayaa badgalay. tigdhadii qiimihii hore $20 waa laga bedelay iyadoo loo bedelay $15. haddaba ma dhaba in Cawaale Aadan showgiisii iska daa bila'aadane aanay waxari ka soo qayb gelin waxuu bilaabay inuu xaraasho tigdhadii iyadoo hudheelka Summertime iyo suuqa Hargeysa xalay lagu xaraashay. walaalkaale meesha camir $5 keen. Cawaale showgiisii markii la tarakoobay xalay waxaa ka soo qayb galay dad gaadhaya 15 qof. 15 qof waxay ahaayeen dumar, may ku jirin rag. Cawaale Aadan xalay waxaa ka soo hadhay dhabanahaysi iyo foorar, isagoo kab iyo shandad laalaasanaya ayuu dib u raacay diyaaradii uu soo raacay. yahay baadigii fanaanka weynaha Soomaalida magaca ku lahaa ayay intaasoo kaliya Hargeysa kaaga soo qayb galeen showgaagii. Cawaale khaladaadku galay waxaa ka mid ahaa in tigdhada Faransiis lagu qoro. safiirkayga Hargeysa jooga ayaa ii fududeeyay inaan halkan yimaado. alla ilaahay baga.